بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa mahad leh. marka labaad waxaan u mahad celinayaa telefishinka qaranka shaqaalihiisa isku hawlay inay door weyn ka qaataan wacyigelinta bulshada iyo inay banaanka soo dhigaan oo ay muujiyaan dhibaatooyinka bulshada ku soo siyaaday waayahan dambe. aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa arrintan ayada ah oo saakay wacyigelinteeda aad wadaan waa aafo ku soo siyaaday mujtamaca islaamka ah ee Soomaalida ah, gaar ahaan waa aafo ku cusub deegaankan guud ahaan galmudug, gaar ahaan gobolka mudug. waxaa laga warhayaa oo aan qarsoonayn dhibaatada khamradu ay ku soo siyaadisay ama maandooriyaha si guud deegaanka dhibaatada ay ku soo siyaadisay wax muuqda oo saameynteeda leh oo caam si guud u kala gaaray bulshada yar iyo weyn, rag iyo dumar, tuulo iyo degmo weeye. arrintaas dhibaatadeedu caam bay noqotay. waxaan u sheegaynaa dadka ahlul xalli wal caqdiga ah oo ay u horeeyaan dhaqanka beelaha oo ay ku xigaan laamaha amniga ee baliisku u horeeyo. arrinkaasi wuxuu u baahan yahay in laga geysto gacan sidii looga hortagi lahaa. waxaan u sheegayaa oo ugu baaqayaa dhalinyarada gobolka mudug arrinkaasi inuu u baahan yahay awood gacan ah oo looga hortago oo lagu joojiyo. odayaasha waxaa laga rabaa wiilasha isticmaalaya maandooriyaha oo bulshada ku fidneeyay dhexdeeda oo dhibaatooyinka ka geystay meel cidla kama iman. ma jiro qof geed laga soo qoray, qof walba dad buu ka dhashay, waalid buu leeyahay, oday buu leeyahay. waxaa la rabaa in loo istaago, war cadna laga soo saaro, qoraalkiisa loo gudbiyo laamaha amniga ama la isku xilqaamo la qabto. laanta amniga markii loo gudbiyo qofkaas dhaqan celinta u baahan ee bulshada dhexdeeda fasaadiyay, waxaan ka codsanaynaa in qofkaas la qabto. meelaha lagu xirahayo oo lagu dhaqan celinayaana inay noqdaan meel qofkii ku dhaqan cishoomahayo ee aysan noqon meel lafteeda qof kasta uu imaanayo la leeyahay hebel baa xiran, hebel baa soo booqday, aan la baarayn. ay dhici karto hebelka soo booqanaya inuu maandooriyihii sido, sidaasna goobtii amniga dhexdeedii uu ku isticmaalayo qofku weli maandooriyihii uu ku isticmaalayo. arrinkaas waxaan aad ugu jeedinayaa baliiska maxaa yeelay shaqadan waxaan is leeyahay xooggeeda cidda ay saaran tahay waa iyaga. waxaan ku garab istaagaynaa inay waxaas ka hortagaan. waxaan ku garab istaagaynaa haddii ilaahay idmo qofkii ay arrinkaas ay ka qabanayaan tilaabo ka qaadahayaan inaan loogu garbayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ka sheekeeyey aafada ay leedahay maandooriyuhu leeyahay, gaar ahaan khamradu ay leedahay. ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijsun min camali الshayطaan. waa qurun shaydaanka camalkiisa bay ka mid tahay. wax wanaagsan ma aha, wax wanaagsan ma aha. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku gebangabeeyey fahal antum muntahuun, war ma ka haraysaan? waa ka haraynaa. ilaahu raalli kama nihin, diyaar uma nihin. qof weyn
maraysaa intuu qofku dadka laayo oo qorigii uu dadka ku laayay keeno inuu yidhaahdo iga waxaan rabaa qorigaan ha la xidho maxaa yeelay qof buu dilay bal fiiri qorigii dadka uu ku soo laayuu sidee wuxuu leeyahay ha la xidho qorigaan maxaa laga rabaa qof buu soo dilay isagaa ku soo dilay ma fadhiyo maankiisu qof waalan oo bulshada dhex maraya wey dadka keenaya maandooriya waxaan leeyahay ilaahay ka baqa naga daaya naga joojiya naga daaya ilaahay ka cabsada irsaaqad xalaalah oo ka waasacsan ilaahay ha idinkugu bedelo laakiin walaalayaalow joojiya waa la yaqaanaa meelaha lagu gada ayaa la yaqaanaa dadka keenaa la yaqaanaa qaabkay ku timaadaa la yaqaanaa waxay u baahan tahay arrinkaasi in la istaago culummadu inay kacaan dhallinyaradu inay kacaan hooyooyinku in la iska waraystaa loo baahan yahay maantay haddii aan laga hadal ee la iska qaban mushkiladdu dhaga la qabtay leedahay daba la qabta ma leh saa dambaad garan markii nin walba gurigiisa ay timaado ilmuhu ay isticmaalayaan waa la gadacyeynaya gadac baa loo gadaya meesha ay marayso intaasaan kusoo koobayaa telefishinkana waxaan ka codsanayaa wacyigelintaas in la wado oo aan laga daalin aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi raxiim magacaygu waa baashi ducaale waxaan ahay gudoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo saakay waxaan rabnaa in halkan wacyigelin ballaaran ka soo jeedino waxaan ku sugannahay nabadoonno dhalinyaro madaxdii degmada iyo waxgaradka intaba waxaana dhibtay sidoo horay oo noogu sheegay nabadoon cismaan macalin siciid maandooriyaha magaciisa la yidhaahdo qamriga oo faraba aan nagu haya khasaaro badana ka geystay gobolka iyo degmada intaba khasaaro weliba nafeed geystay dhallinyaradii isticmaalaysay oo loo keenay markay cabbeen ayaga dhexdoodii isku laayeen arrintaas ayaana dhibtay oona xanuujisay kuwa cabbayana waa walaalaheen waa wiilasheenii ninka dhimanayana intuu cabbo kan kala dilayana waa walaalkeen amse waa wiilkeenni marka arrintaas annagaa u fiyow annagaa maskax u ah annaga haddaanan ka hadlin ama aan la dagaalamin ama aanan joojina cid kale oo noo joojinaysa ma jirto anagu waxaan nahay soo gudbiyihii waxaan far ku fiiqaynaa tilmaamaynaa goobaha lagu gado ragga gada iyo inta keena intaba waa naqaana waayo waxaan nahay dadka deegaanka u dhashay sida horey nabadoonku noogu sheegay waxaan ku baaqaynaa in arrinkaas la joojiyo weliba waxaan ku xoojinaynaa laamaha amniga ay ugu horreeyaan boolisku in arrintaa u istaagaan ayaga maaragtay xagga amnigu deegaanka mas-uuliyad ka saaran tahay habeen walba ma maqli karno nin baa la dilay waxaana dilay nin cabsan arrinkaas nooma suurta gasho waan ka soo horjeednaa waana xanuujinaysaa saakadan oo horreyso waxaan rabnay arrinka u istaagno aan burburino booliskana arrintaas noogu horumaraan aad u mahadsantiin waa mahadsantihiin odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo telefishinka qaranka aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu saaka ka hadlaynaa waxaa weeye waa maandooriyaha khamrada loo yaqaan iyo daroogada kaloo la socota waxaan baaq dheer ku diraynaa ama ku xoojinayaa kelmadaha ay sheegeen walaalaheen nabadoonnada iyo dhallinyarada oo ah meesha kaliya hadda ugu daran gobolka mudug wey soomaaliya way wada qabtaa laakiin waxaa dheeri ah gobolka mudug waa zaa'id waay xuduudda etoobiya u dhow waxaana kaga keenaa khamrada dalka walaalaheena etoobiya gaalkacayo labadeeda dhinac waa isku mid amnigay khalqi gelisay dilkiibaa hameen kasta taagan waxaanu marka codsanaynaa in arrintaa iyada ahay cid kasta wax ka qaban karta boolisku laamaha amniga u horeeyaan booliska milatariga nabad sugidda ayaga dhaliil baa usoo jeedinayna maxaa yeelay in gobolkiina laamihii amnigu ay dhooban yihiin khamradiina hameenkii gabdhihii ay bixi waayaan waa nasiib darro waxaana leenahay amniga ka soo gaara arrintaa iyada ahay ma qarsoona dhibkeedu meel kastuu gaaray guri kastuu gaaray
ganacsiga in 6 saac la xiray noqonaysaa haddii amnigu ay wax ka qaban waayaan shacabka reer gaalkacyood ama shacabka soomaaliyeed ama shacabka gobolka mudug waxaanu leenahay u istaaga gacanheedna aan ku wada zuulino waa munkar khatar ah wuxuu soo wadaa ka badan waxaan hore ugu aragnay waxa hadda ka bacdi soo socdaa kasii daran waxaan rajaynaynaa marka baaqaas in la qaato insha allahu annaguna dadka ugu horeeya oo ka hortegi doona khamrada intanaan iyo in ka badan intaasaanu nahay telefishinka qaranka si gaara ugu mahad celinaynaa maadaama uu soo xilqaamay aad baa umahadsantay alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka hore waa u mahad celinahay telefishinka qaranka sida wanaagsan oo uga qayb qaadanayo wacyigelinta bulshada meel kasta ay ku sugan yihiin sida hore loo sheegay meeshan waxaan iskugu nimid inaan ka hadalno qamriga maaduriyaha qamriga dhibaatadu ku hayo gobolka mudug khaasatan magaalo gobolka mudug tuulo ilaa degmo qamrigu wuxuu ka noqday gobolka sidii biyihii la cabayay oo kale waayihii hore qamrigu wuxuu ahaa qaali oo ah laakiinse waayahan wuxuu ku noqday inaad ku heshid biyihii waxa ku cabaysa oo kale qiimo lamid inaad ku heshid marka qamriguna ilaahay qur-aankiisa 4 aayadood buu ku sheegay waa ka hadlay qamrigu waa maanduuriyaha ugu weyn marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan waxgaradka culummada booliska inay u istaagaan arrintaas si wax loo qaban lahaa waayo waa wax dhibaato deegaanka dalka u ah haddii see kusii socotana waxay noqonaysaa inay meeshay taagantahay meel ka xun ay timaado marka waa in loo istaagaa waa in gacmo weejir wax lagu qabsadaa waa in mudaharaad laga sameeyaa waa in booliska iyo laamaha amniga ay gacan bira ku qabtaan marka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وبرهان ورسمة حرسي كان من الدنيا قبل كمدوق قاسة مقالة قال كعيو وقرنتي أنا وكفاية سنة فرصة محرة أنا ومهد عليو تلفزيون كقرن كصوماليا يشغاليسا اسكو هؤلاء إن برنامج كان وعي قلنت بالشركة غيب قاتان سيدا هر الله شيء وما أنت هركم حاول شوقنا إن أنا بالشركة كوعي قلنا لبعضها إلا ذا قمرية وهذا أكسون هاي sida ay gobolka mudug qaasatan magaalada gaalkacyo ay ku tahay waa laga soo sheekeeyay sida xaaladdu ay marayso waxaa la maraya heer habeenkii la socon waayo oo dadkii maarata la dhibaataynayo gabdhihii la kufsanayo dadkii si macna daraa loo dilayo xoolihii maaragtay la leynayo xoolihii macnaha wadooyinkii joogay la leynayo tabeelayaashii maaragtay iyo darbiyada xabada lagu garaacayo marka dhibkaas oo dhan waxa keenaysa waa qamrada sida nabi cali sallallahu alayhi wasallam noo sheegana waxa weeyaan waa umul khabaa'ith macnaha xumaanta oo dhan ayada dhasha marka inaan ku fiirsano arrintaas ayada ah waynoo macnaha duruuftu nooma saabaxayso dadka la leynayo dadka la dhibaataynayo waa bulshadeena saa darteed sida hore loo sheegay waa in dhammaan bulshada u istaagta arrinta ayada ah waa in laga wada qayb qaataa waa in qof walba doorka uu ku leeyahay uu ka qaato oo qof walba door ku leeyahay maxay tahay qof kastoo naga mid ah door ayuu ku leeyahay waxaana ugu muhiimsan sida la sheegay doorka ugu muhiimsan ka leh dadka u ah bulshada indhaha u ah oo culimada diinka odayaasha laamaha amniga maamulka degmada iyo gobolka intaba inay u istaagaan waxaa noo muuqata intaba inaysan waqtigan hadda la taagan yahay aysan diyaar u ahayn arrintaas ayadoo dadkii la leynayo dhibaatada ama khasaaraha uu geystay ilaa hadda waxaan ogsoonahay 10 qof dad ka badan ayaa degmada gaalkacyo gobolka mudugba arrintaa ugu dhintay oo godka u galay saa darteed haddii sidaan lagu fiirsano boqolaal ayaa ku dhimanaysa saa darteed annagu ka dhalinyaro ahaan waxaan diyaar u nahay inaan arrintaas ayadaa u istaagno inaan doorka aan leenahay ka qaadano inaan wacyigelinta bulshada aan ka qayb qaadano marka bulshada gobolka mudug waxaan u baaqayaa waxaa jiri doona foorumyo iyo kulamo arrintaas ayadaa maaragtay looga hadli doono kulamadaasoo la rabo inay ka soo baxdo waxqabad hadal kaliya lama rabo in bulshadu saxiixaan ama maaragtay odayaasha dhaqanka iyo maamulku ay qoraan dikreeto dadkaas arrintaas ayada wax looga qabanayo dadka fulin lahaana waa dadka maaragtay xoogga dalka weeyaan waa in boolisku arrinta ayada u istaagaan bulshadana ay maaragtay arrintaas ayada wax ka qabtaan mar kale waxaan mahad celinayaa telefishinka qaranka Soomaaliya aad baan u mahadsantihiin assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed bashiir maxamuud kamid ah dhalinyarada magaalada gaalkacyo ugu horeyn waxaan mahad celinaynaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa gobolka mudug shaqaalaha uga shaqeeya oo aalaaba si dhow ula shaqeeya
qaybaha kala duwan ee bulshada xagga wacyigelin ha noqoto ama horumarada ha noqoto mar walba kala shaqeeya run ahaantii maanta waxaan xaggaan u fadhinaa anagoo iskugu jirna culamo dhalinyaro maamulka degmada qaybaha ka mid a odayaashii inaan ka hadalno baashaan magaalada kusoo kordha ilaa qamriga oo magaalada saameyn xoogan ku yeelatay run ahaantii waxay maraysaa in magaalada iska daa ay tuulooyinkii baadiyihii u gudubto oo xataa reer baadiyihii ay cabhayaan magaalada awal aan ogeyn oo hubku macnaha uu iska yaalo iska dhoobnaa uusan sharciyeysnayn misna baashaan ay timid qamriga ah ay dadkii iska leynayaan siyaabo kala duwan loo dilayo xaladan u dambeysay mid baan tuu tabeella xabad la dhacay buu yidhi tabeella sorry waa ka xumaa iga raalli ahow maxaa u malaynaysa marka baniaadankii heerka ay marayso waa la yaqaanaa meelaha lagu gada dadka keenaa la yaqaanaa kuwa gadaa la yaqaanaa dadkii waxa ka qaban lahaana waa laamaha amniga runtii waxaa mar ayagu kuma baraarugsanaa haddaa anagu dhallinyarada nahay waxaan diyaar u nahay mar walba inaan kala qayb qaadano inaan la shaqayno aan tusno dadka gadaya iyo meelaha lagu gado iyo qaababka ay ku timaado haddii awood nooga bahdana xooggeena aan ku biirano waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka magaalada gaalkacyo culamaa diinka laamaha amniga dhallinyarada in si wada jira barnaamijkaas looga hor yimaado aadaan umahadsantihiin la qabaa dhiirigelinta ah joojinta qamarada iyo daroogada waxaan aad ugu mahad celinayaa ilaahay baa mahad iska leh mar labaad iyo mar saddexaadba mar labaad waxaan mahad u celinayaa TV-ga qaranka oo ayagu semberi idaacadooyinka dhiirigeliya meelaha dhibaatooda ka jirto bulshadu waxay u baahan tahay wacyigelinta iyo digniinta maanta misana waxay joogtaaba meelihii ay haleen qaabkay u haleeleen meesha maaragtay altriga nolosha bay maanta ugu dambaysa bay maraysaa waxaan is leeyahay maanta qamradoo kaleeto waa daroogadii falxumadii noogu dambeysay inay tahay baan aaminsanahay nolosha u dambeeyay meesha ku suuli lahayd waxaan dugsanaynay isbaaroo kaleeto waxaanu soo marnay oo dhagaha wax badan ka xaydanay xumaanta waxay socotaa waxay maraysaa qamradii waxay maraysaa bahal la yidhaahdo taambuug waxay maraysaa in jufooyinka tuulooyinka lagu kala gato iyadoo laisku qabyaaladeynayo waxaan is leenahay waxaan ilownay oo qof kasta iloobay mas-uuliyaddiisii uu lahaa bulshada nolosha xagga ciidanka ha ahaato oo iloobay amnigii culimmadii oo iloobay wixii ilaahay raaciga uga dhigay oo baray xujo ah qof walba simber waxay sheegayaan inay dadkan ummadda inay raaci ilaahay uga dhigay qof walba mas-uulka inuu ka reebo wixii ilaahay ka reebay wixii noloshiisa wixii beri lagula xisaabtami doono odayaashii waxaan ka doorbideen intay ka buraarajin lahaayeen intay ka doorbidi lahaayeen in qof walba nolosha meesha ku jirta dadka noloshiisa inay horseedka ay u dhaarteen bulshada nabaddoonnada ay u ahaayeen waxay ka doorbideen 9 saac mooryaan isku dishay oo tuuga dad maskaxdooda maqan tahay inay baadi goobaan waxay ka doorbideen inay digniin sii bixiyaan dadka nabaddoonnada u yihiin inay ka reebaan xaaraanta iyo muqaadaraadka waxaan oran lahaa maantay dhalinyarada iyo bulshada in la isdaba qabto oo waayeel iyo dhalinyaro iyo caruur iyo gabdhaba inaan loo kala harin maadaama ragii bulshada waxaan leenahay ay ka gaabiyeen odayaal iyo amni iyo culummo mas-uuliyaddooda ay ka gaabiyeen ayagana waxaan leenahay ha ku soo laabteen mas-uuliyaddooda oo ilaahay baa nagula xisaabtamahaye qof walba meeshuu joogay mas-uuliyaddiisa ha ka qabsaa hala isdaba qabto waxaan maraynaa nolosha inay baktido markii qabradii la cabahayo isbaarada hor taagannahay dhalinyaradii toombuug iyo dugaaro daroogo cunayso maxaa noo haray weeye anigu waxaan oran lahaa oo ku qayldhaamin maanta qayldhaamay maraysa in la kaco meelaha lagu gadayo qofka gadaya qofka maaragtay talfay intuu daba qabto intii meydkiisa la goobi lahaa ama dadkana uu soo jiido qof kale oo caqli loo dili lahaa in la daba qabto asagana la daba qabto la xareeyo oo la dhaqan celiyo sideen culimada oo khiyaarta hore u sheegtay asagana la caymiyo waxaan oran lahay mas-uuliyaddaasi qof walba maanta waxay u baahan tahay meel kasta inaan ka orodno tiifiyaasha kaleeta iyo idaacooyin kaleetana inay kolley ku dayo doon baan u malaynaya ay soo geli doonaan dhiirigelinta waxaan kusoo gabagabaynahayaa khayr badan allah inad siiyo aad baan idinku mahad celinahayaa waxaana ku garab taagannahay wacyigelinta iyo istaaga iyo ficil wixna lakaga baahdo wasalaamu calaykum waraxmatullah